wixii shalay ka dhacay waddankeenna shaki kuma jiro qof ilaahay diintiisa garanaya oo ilaahay ka baqaaya xagga ilaahay mooyaane dhinac kalena aan iska eegahayni muran ma gelin kara arrintaas inay fitno tahay. dadka cidda soo kicinaysa ee iska horgeynaysa waa dadka kursiga iyo madaxtinimada isku haya. taasina waa adduunyo diin maaha. muslimiintu inay isku khilaafaan ay ku murmaan arrin adduunyo oo adduunyo ay khilaaf u sababto iyo cadaawad iyo isnac inay adduunyo u sababto inay islaayaan oo dhiigooda ay daadiyaan ay isdhaawacaan ama nafahooda qaar ka mida ay jaraan, arrintaasi bilaa khilaaf fitna inay tahay ayay culamaa ulislaam isku waafaqeen. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin. sala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin. ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah, ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu in badan ku soo celceliyey sheegista ereyga alfitna. ilaa 60 jeer bay kelmaddaasi ku xusan tahay qur-aanka kariimka ah. axaadiida nebigana calayhi salaatu wasalaam sheegista fitnadu aad bay ugu soo noqnoqotay. waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada iyo ummaddiisa ka dambaysayba wuxuu u ahaa naasix amiina oo wanaagooda ka taliyaya dantooda, wixii diintooda iyo adduunyadooda wanaagsanba waxyeelayana uga diga. macnayaal badan baa fitnadu ay ku leedahay fi lqur'aani waasunna. waxaa macnayaashaasi guud ahaan ay ku soo ururayaan fitnadu inay tahay kullu maa yunqisu diina almari aw yuziiluh, wax kasta oo qofka diintiisa nuqsaan gelinaya oo iimaankiisu inuu hoos u dhaco sababaya, inuu dembaabo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka fogaado dhaxashiinaya. wax kasta oo yaraynaya qofka alle kacabsigiisa iyo diinku dhaqankiisa, wax kastoo sababaya qofku inuu dayaco waajibaadka iyo xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray, ama wax kasta oo qofka diintiisa meesha ka saaraya oo gunta ka maraya, sida gaalnimada, nifaaqa ictiqaadiga iyo shirkiga. waxay isku waafaqeen culamaau lislaam wa kutubu assunna fi lictiqaad ay ku qoreen ana ikhtilaafa almuslimiina wa tanaasucahum cala addunya waiqtitaaluhum calayha fitnatun biitifaaqin wa bilaa khilaaf. muslimiintu inay isku khilaafaan ay ku murmaan arrin adduunyo oo adduunyo ay khilaaf u sababto iyo cadaawad iyo isnac inay adduunyo u sababto inay islaayaan oo dhiigooda ay daadiyaan ay isdhaawacaan ama nafahooda qaar ka mida ay jaraan, arrintaasi bilaa khilaaf fitna inay tahay ayay culamaa ulislaam isku waafaqeen. wixii shalay ka dhacay waddankeenna shaki kuma jiro qof ilaahay diintiisa garanaya oo ilaahay ka baqaaya xagga ilaahay mooyaane dhinac kalena aan iska eegahayni muran ma gelin kara arrintaas inay fitno tahay. waayo waxa la ysku haystaa waa adduunyo. dadka cidda soo kicinaysa ee iska horgeynaysa waa dadka kursiga iyo madaxtinimada isku haya. taasina waa adduunyo diin maaha. raggii kursiga isku qabtay ee weliba diin ku xukumayey ayaa khilaafkii arrintaasi ka dhashay iyo dagaalkii arrintaasi ka farcamay inuu fitno ahaa. culamaa ulislaam ay isku waafaqeen. maxaad u malaynaysaa cid aan uba socon bitaxkiimi ilaa taxkiimi kitaab illah wa sunnati rasuuli illahi wa iclaa'i diin illahi subxaanahu wa tacaala. mar labaadka inay fitno tahay waxaa muujinaya nataa'ijta xun ee arrintaasi ka dhalatay oo nafo muslimiini inay ku go-een. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lazawaalu dunyaa ahwanu cala allahi
من قتل رجل مسلم بغير حق رواه البخاري في صحيحه الدنيا دني جبيgeedu ba inay baabado oo aanay ku jirin dadka muslimiinta ah oo baaba iyo halaaga ay ka badbaadaan ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala kala fudud qof muslim in la dilo qofka muslimka ilaahay kaliyeynaya rabbi subhanahu wa ta'ala caabudaya ilaahay agtiisa qiimo weyn buu ku leeyahay macna darro inuu ku dhinto si xaq darro in loo dilo in la dhaawaco dhiigiisa la daadiyaa وجريمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى والذنب آدي آدوين إلهي سبحانه وتعالى أكتيس سؤالنا وكدن بيسا وقفك قف مسلم الدين وحل ويدين دونا وحا وكد لي إلهي با سبحانه وتعالى ويدين دونا والسؤال سوى يسوي ابن عمر وحر رضي الله عنه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك دم حرام arrimaha halista culus ee qofka naftiisa ku rida meel uu gabaxaanu haysan ee dunyada cidhiidhi uu ku noolaanayo aakhirana xaalada adag ay sugayaan waxa kamida qofku dhiig xaq darra inuu daadiyo ayuha almuslimuuna cibaadallah waajib waxa ku ah dadka ahlul cilmiga ah inaanay arrimahan oo kale uga aamusin waxaana la odhan doonaa iyo waxba laga sheegi doonaa iyo dad baa kugu nici doona waajibku waa qofku dadka xaq inuu sheego وفي ذلك فائدتان arrintaana laba faa'iido ku jira faa'iida koowaad waxay tahay inuu dummadiisa ilaahay hortii bari yeelo oo uu noqdo mid fuliyay dardaarankii Nabi Maxamed uu yiri la yamna'anna ahadakum haybatu an-nas an yaqula al-haqq aw ya'mal bihi idha 'alimahu midkiin haybadeysiga dadka uu ka haybadeysanayo ee uu iska dhowraya yaan u diidin xaq inuu ku hadlo iyo inuu ku amal falo mar hadii xaq uu cadaado oo garto faa'iida labaad ku jirtaana waxay tahay in dadka qaar kood ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku anfaco wanaagaas uu sheegay oo diintoodii iyo adduunyadoodu labaduba ay ugu badbaadaan waxa kaloo taa raacaya in marka dambe dadku ay miirsadaan ee sakradii fitnadu ay ka baado ay isaga dib ugu soo noqdaan oo mowqifkii xaq ah ee uu istaagay ay mahadiyaan معبد الجهني wuxuu kamid ahaa dadkii ka qayb qaatay fitnatul qurra culimo badan baan maray buu yiri waxay u muuqataa mid xaq sidoo ahaa ugu sheegay Xasan al-Basri mooyaan inaanu jirin ma ra'aytu mithla al-Hasan buri ya waylana ata'nahu Xasan al-Basri nin lamida ma arag buri caalim lamida iyadoo la caayo leeyahay waa cijl maxaad ka dhageysanaysaa adoonkan oo fitnadu ay aloosan tahay oo dadku xamaasad iyo caadifad badan ay u hayaan ayaa wuxuu la taagnaa xajaaj oo sharkiisa aynu garanayno war xajaaj waa cadaab ilaahay dambi aad gasheen baana sababay war dambiga ciqaabka ilaahay seefihiina iskaga difaaci kartaan ee dagaalka iska daayo ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keena waa lagu caayay markii dambe mowqifkiisi baa la mahadiyay oo kuwii fitnada galay ka soo doogay waa kuwa leh Allah miyaanu adeecno Xasan al-Basri inta aanan fitnadaasi aanan gelin fitnada dabeecadeeda ayay kamid tahay in marka hore dadka ay isu qurxiso dadka aan aqoonta badan lahayn ama iimaan xoog badan oo xira iyo warac iyo diin inay dib isu taagaan ay wax xubsadaan u sababa aad bay fitnadu wala qurux badan tahay waabay la yaabayaan way quursanayaan qofka ku dhaw waxan waa fitne la fiina uga jooga oo diintiina iyo adduunyadiina yaanay sahayanin wasida uu yiri al-Hasan al-Basri rahimahullah al-fitnatu idha aqbalat arafaha kullu aalim wa idha adbarat arafaha kullu jahil fitnadu markay soo socoto dadka ilaahay yaqaana iyo ahkaamtiisa ayaa garta waxaas waa fitne iyo idin jiirina ka jooga asaate markay daba jeediso ee waxay burburinaysaa ardaaduqaha ka dhigaysaa ay ka dhigto
dad badan ay u dhintaan kuwa kale ay ku dhaawacmaan adduunya ay u baabaado la dambaabo ilaahay lagaga fogaado qof waliba uu gartaa inay fitna ahayd arrintaana tusaalaheeda maanta si cad baynu haynaa wax badan oo ina soo maray oo dagaallo iyo khilaafaad iyo fitan iyo cadaawad iyo qabyaalad ahaa maanta dadkoo dhammi way garanayaan waxaasi wax xun inuu ahaa oo qof maanta ammaanaya ama ku faanaya ma jiro xataa kuwii ka qayb galay ka soo doogay in badan oo ka mid ah alxamdulilah bay leeyihin in maanta la sheego la soo hadal qaado iyaga weliba lagu sheego aad bay u karaahiyeysanayaan dabeecadda fitnada ayay ka mid tahay cali bin abi aalib waad garanaysaan waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam in adeerkii ruma waa ninkay u dhaxday faatima bintu rasuulillaah waa min ahli ljanna haddana fitna ayaa dhacday dhex martay isaga iyo mucaawiya radia allahu canhuma ajmaciin midna dagaalka kuma saxsanayn cali kaana cala alxaq laakiin dagaalka maadaama dhibkiisu uu ka badnaa waxtarkiisa xataa cali kuma saxsanayn isaga laftiisa ayaana taaqiray markii fitnadaasi dagaalkaasi uu dhammaaday cali bin abi aalib radia allahu canhu wuxuu ku dhawaaqay eriye badan oo tusinaya siduu dagaalkaasi uga warwarsanaa isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay inuu yahay cala alxaq wuxuu ammaanay saxaabadii fitnadaasi ka hadhay wuxuu yidhi alla wanaagsana mowqif ay istaageen cabdullaahi bni cumar iyo sacad ibnu malik hadduu khayr yahay ajarkiisu weynaa hadduu shar yahayna dembigiisu yar ah wuxuu yidhi imaamkii la odhan jiray ayuub asikhtiyaani soo ka warramaya raggii culimada iyo quraada ahaa fitnatu ibnulashcaf oo dad badan ay ku dhinteen ka qayb galay wuxuu yidhi mid kasta oo ku dhintay dhimashadiisaa lama mahadin waa laga xumaaday inuu halkaa ku dhintay dhimashada lafteeda ayaa kala wanaagsan qof meel fiican ku dhintay oo la hubo in dhimashadiisaasi ay tahay mid aanu ku dambaabahayn bal ilaahay subxaana wa tacaala mid u dhoweynaysa oo ilahay agtiisa darajooyin u yeelaysa iyo qof fitno ku dhintay isku mid maaha wanasal allah an yarxama jamiica mowta almuslimiin mid kasta oo fitnada ka badbaaday wa kullu man najaa minha xamida allaha calaa salaamatih mid kasta oo ka badbaadayna markii dambe ilaahay buu uga mahadnaqay inuu ilaahay badbaadiyey oo fitnadaasi kuway saayatay aanu ka mid noqon wanadima calaa maa facal wixii uu sameeyo ah ka qayb qaadashada fitnadaasna aad iyo aad buu uga murugooday oo uga xumaaday ayuha almuslimuuna cibaad allah diin maaha caqlina maaha mowqif saxana maaha in qof muslimi uu u dhinto qof kursigii isagoo difaacaya ama doonaya dadkii muslimiinta ah ee hore fitanka marka loogu yeedho caadifad iyo xamaas mawaaqiftooda kumay salan jirin waxay eegi jireen cawaaqib alumuur fitnada iyo waxaa ka dhalanaya intaa dabadeed bay kitaabkana waa ku miisaami jireen intaa dabadeed bay mowqif qaadan jireen sax waxaa isdilay marwan ibnu lxakam iyo adaxaak ibnu qays iyagoo kursi isku haysta nin la odhan jiray alasadi ayaa marwan ibnu lxakam uu fariin u diray markaale dagaalka nagala qayb gal buu yidhi dagaalkiibuu ka diido dabeetana wuu eeriyo aad buu caayo u aflagaadeeyey fulay baa tahay oo macna ma lihido wax walba waa ku yidhi gabay uu markii dambe tiriyey aad iyo aada u qiimo badan oo waktigeennan gaar ahaan aada munaasib ugu ah walastu muqaatilan rajulan muslima walastu muqaatilan rajulan yusalli anigu la dagaalami maayo qof muslima oo tukanaya calaa sultaani aakhara min qurayshin kula dagaalami maayo mid kaleo isaguna qurayshun ka mid a oo laba ninoo isku reero macnuhu kursigii iyo madaxtinimadii kula dagaalami maayo lahu sultaanuhu wa calaya ithmi hadduu gaadho kursigaa iyo madaxtinimada ama ay u sugnaato isaga ayaa iska leh oo madax ku noqonaya anigana dembiga dadkii aan laayey burburkaan geystay nabadgelyo darrada iyo khalkhalkaan sababay caydaan caydtamay waxaasoo dhan dembigeeda lagaga dhaafi maayo hebel baad kursi ku fadhiisisay ama hebel baad kursigiisa aad u ilaalisay
إلهي بقى سبحانه وتعالى يقال حساب طمية أعوذ بالله من جهل وطيش بوري إلهي بقى سبحانه وتعالى كما قنقليا جهلي قوى الله بقى أقوم ضره يوحي علمي أن قرينا كعمل فلو أيوان خلاف وحكلان إلهي كما قنقليا فضيت فتنين أن قال الصابي يقول نغضة وقال فتنة ومسلمين تود حية هي خلاف إن قيب كنغضة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي واحد لو يديه فتنة مركا يدعضه يا أشهر بضن فقال كل خطيب مسقع وكل راكب موضع فتنة مركا يدعضه الله بقى أشهر بضن وفتنة أباب الكيدة يهورين تدب كيدة آدو قيب قاطع marka dambana kuwa horeeyay ay sahayatan noqda ka koobad waayo waa fitnada ka minbarka u saaran ee ku baaqaya dadka ugu yeedhaya abaabulaya ee u qurxinaya fitnada ee wax fiican inay tahay u tusinaya minbarka u saaraya hal ka khudbadeynaya meesha doonaysa noqoto masaajidka ka khudbadeynaya ama meel kale waxa kale oo shar badan mid kasta oo gaadiid u saaran mid kastoo fitnada faras u fuula oo muudica ay musricun ilayha xageeda u degdega oo mar allaaliyo marka dhawaaqeeda iyo qeyladhaanteeda la maqlo isagoon waxba hubsan markiiba faraskiisa intuu heesaysta ku booda oo halka dabkeedu ka baxayo u dhaqaaqa